بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينك oo kamida muxaadarooyinkeena xiriirka ahay waxaanu ku soo qaadanaynaa al-amru bixifdi lisaan, in la isfaraayo carabka in la ilaaliyo oo laga ilaaliyo wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uusan u banaynin in lagu sheego ama lagu dhedhemiyo, in laga reebo lisaanka laga reebo. إلهي سبحانه وتعالى وحا يري: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وحال الربا حبنها إلهي سبحانه وتعالى ونسيي أو قالقه أو إنسان كالإسغة تركيبيي إن لغا إلاليه وحي إلهي سبحانه وتعالى وكرهبي gaar ahaan kuwa markaas la yiraahdo al-xawaasul khamsa la yiraahdo shanta wax lagu dareemo si gaar in loo ilaaliyo ayaa loo baahan yahay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay suuratul Isra aayadda 36: wala taqfuha raa'in ayuu dhahay Ilaahay ma laysa laka bihi cilmun, waxaadan ogaal adan ku lahayn shay adiga ogaal aadan u lahaynin ha raacin. waxaan cilmigaagu uusan ku tacalluqin oo qowl ama ficil ah, marka arrintaasi waxay ku gelinaysaa inaad shahaadatu zuur aad samaysid oo wax been ah ama shahaadatu zuur wax beena markaas aad ka markhaati kacdo, wax beena inaad sheegto, inaad wax nabto ayay keenaysaa. marka waxaadan ogeyn waa ogahay ha dhihin. maxaa yeelow dhah Ilaahay: inna samca maqalka dhigaha wax lagu maqlaayo iyo wal basara aragga wax lagu arkaayo iyo wal fu'aada qulubta wax lagu qaadaayo kullu ulaa'ika kaana anhu mas'uula. intaasoo dhan waa la iska su'aalayaa maalinta qiyaamo. qof walba intii wuxuu ku sameeyey ayaa laga su'aalayaa. wixii markaasi dhagihiisa oo ku dhageystay, inuu khayr uu ku dhageystay iyo inuu shar uu ku dhageystay, indhaha wuxuu ku fiiriyey wax Ilaahay u baneeyey iyo waxaan alla u banaynin, laabta waxa uu geliyey inuu maaratay wax wanaagsan qalbigiisa geliyo iyo waxun inuu geliyey, sida maaratay waxyaabaha la yiraahdo amraadul qalbiya, xasadka iyo xaqdiga iyo waxyaabaha aan fiicnayn oo dhan iyo caqiidada faasidka inuu qalbigiisa geliyo iyo inuusan gelin. amuurahaasoo dhan maalinta qiyaamo waa la iska su'aalayaa hawdhah Ilaahay wixii lagu sameeyey. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xawaastaas alla uu noo sameeyey. marka waxaa la rabaa waxaan adan adigu ogeynin inaadan raacin, wax la yiraahdo tajasus adan samaynin, oodan markaasi waxaan lagu dirsanin, adan markaasi ceebahooda raadi adan isdhihin. maxaa yeelay waxaa kaloo dhahay Allah subxaanahu wa ta'aala suuratu qaaf aayadda 18: maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. insaanku qowl kuma hadlo ilaa waxaa agtiisa jooga mid maarataya ilaalinaya oo xifdinaya. laba malag oo la yiraahdo raqiib iyo catiid, oo midna waxa weeye khayrka uu ka qoraayo, midna sharta uu ka qoraayo. marka qof walba lisaankiisa waxa ka soo baxaya waa la sugayaa, ayadoo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cilmigiisa lagula socdo ayaa haddana malaa'ig Ilaahay uu raaciyay insaanka ayay ilaalinayaan oo markaasi wax alaala wixii camala
ama se maaragtay qowla ama se ficil ah kulli waa isu tegayaane wax kasta oo insaanku uu sameeyo haddii uu qowl ku sameeyo iyo hadduu ficil ku sameeyaba malaa'igtaas ayaa markaasaa ka qoraysa. waxaa xadiis soo arooray qofka mu'minkaa markii uu dhinto laba malag ayaa qabrigiisa ag joogsanaya oo waxa weeye markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudaaya. markaasaa labadaas malag sawowgooda ayaa loo qorayaa qofka mu'minkaa ilaa yowmil qiyaamati. waa markii qofka mu'minkaahu wanaag iyo khayr uu ka shaqay jiray markuu dhinto laba malag ayaa qabrigiisa ag istaagaysa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay caabudayaan. markaasaa sawowga ka dhasha cibaadadaas allay caabudayaan ayaa qofkaas mu'minka ah oo wanaagga ka shaqay jiray ayaa loo qorayaa. hadda haddii waxa weeye markaasi qof kale uu yahane shar ayaa loo qorayaa. marka ilaahay wuxuu dhahay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. insaanku qowl kuma dhawaaqo ilaa waxaa agtiisa jooga mid maaragtay camalkiisa ilaalinaaya oo xifdinaaya. malag kasta waxaa la yidhaha raqiibna waa la dhahay dheen culummadu, catiidna waa la yidhaahdaa. marka hadda markii wax kasta oo kaa soo baxa oo lisaankaaga ka yimaada haddiiba malaa'igu ay kaa qorayso maxaa loo baahan yahay? waxa malaa'igtu ay kaa qorayso inay khayr kuu noqdaan, inaad lisaankaaga aad ku dadaashid, inaad samcigaaga maqalkaaga aad ku dadaashid, inaad araggaaga aad ku dadaashid, inaad quluubtaada aad ku dadaashid ayaa loo baahan yahay. seedaba markii laga hadlo imaamkeenna weyn oo imaamu nawowi ayaa waxa uu dhahay waxaad ogaataa ayuu dhahay qof kastoo mukallafa inay ku habboon tahay oo laga doonaayo carabkiisa inuu ilaaliyo, hadal dhammaantiisna uu ka ilaaliyo ilaa hadal inuu yahay mooyaane maslaxadu ay ka muuqanayso. marka la hadlaayaba sideedaba la iska hadal looma hadlo. dadka waxyaabaha fadhi ku-dirirka la yidhaahdo ku hadlaaya oon lisaankooda koontaroolka uusan lahaynin khatar bay ku sugan yihiin. marka la hadlaayo hadalku wuxuu iska leeyahay jid loo mara ayuu iska leeyahay. markaad hadlayso ood qof muslima aad tahay hadalkaad hadlayso waddo loo mara waa inuu lahaada. marka qofku waa inuusan ku hadlin ayuu dhahay imaamu nawowi ilaa hadal maslaxa ay ka muuqanaysa mooyaane, oo qofku markuu wax sheego oo qowlka uu ka soo baxo waa inay maslaxa ka daahirayso. haddii waxa weeye hadalka oo la yidhaahdo ama laga tago maslaxadu ay ku siman tahay ayuu dhahay mataa istawa alkalaamu wa tarkuhu fi lmaslaxati. hadalka markii waxa weeye in la sheego iyo in la iska dhaafo maslaxadu ay ku siman tahay fa sunnatu alimsaaku canhu ayuu dhahay. waxaa markaa la sunneeyaa in la iskaba daayo hadalkii haddii waxaa weeye maslaxadiisa iyo maslaxa darradiisu hadday xataa isku mid tahay waxaa loo baahan yahay in laga tago. sunna saasa ah. maxaa yeele waxaa laga yaabaa in waxa weeye maslaxadii mustawaheedii qofka ina uu ka gudbo markaasi waxa weeye khatar uu galo. liannahu ayuu dhahay qad yanjuru lkalaamu lmubaax ilaa xaraamin ow makruuhin. maxaa yeele waxaa saas loo leeyahay waxaa suurtagala ayuu dhahay hadalka oo bannaan oo in la ysaga hadla ay bannaan tahay qofkan shay xaaraama inuu u jiido oo shayddaanku lisaanka uu ka dalfiyo amase shay karaahiya uu ku jiido. wadaalika kasiirun fi lcaadati wasalaamatu laa yacdiluhaa shay-un ou dhahay. waxau dhahay imaamku arrintaasu way badan tahay ou dhahay, caadada waa ku badan tahay oo qof ayaa waxa weeye war mubaaxa ayuu ku hadlaayoo sheeko caadiya. shayddaankibaa markaasaa lisaanka ka leexinaya, markaasaa warkii wuxuu tegayaa inuu xaaraam ou ku tago amba qiibow gelayaa, xan ayuu gelayaa, namiinuu gelayaa, kalaam oo xun oo faaxisha ayuu gelayaa, amashe shay karaahiya ayuu markaasoo ku dhacayaa. marka arrintaasoo laga nabad galana wax u dhigma ma jiraan. waxaa weeye hadalka hadday maslaxada iyo maslaxad darradu ay ku siman tahay xataa waa laga tegayaa.
marka sidaas ayaa waxa weeye warka in loogu fiirsado ayay haboonta haddii aynu soo qaadano xadiis saxaabiga jaliilka laga wariyay oo Abu Hurayra waxa uu dhahay oo nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam nabigu inuu yiri man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmud rasuulkeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam qofkii ilaahay iyo yawmul aakhir rumaysan haddii oo waramaayo falyaqul khayran khayr ha ku waramo ha sheego oo liyasmud ama ha iska aamuso dhah waxba kama dhaxayso haddaad waramayso hadda iimaankan waa iimaan kaamila weeye qofkii waxa weeye ilaahay rumaysan oo iimaankiisu kaamil yahay yawmul aakhir rumaysan hadda yawmul aakhir waxa loo khasisay iimaanka la rumeeyo yawmul aakhir waxa ka laasimayaa la yiri waxa qiyaamada jirana in la rumeeyo maxaa yeelay haddii qiyaamadii uu rumaysan yahay qiyaamadu waxa ay kulminaysana qofkaas waa rumaysan yahay qiyaamada iyo waxay kulminayso dhan waa ay ku wada jiraan marka khayr ha sheega ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo liyasmud ama ha iska aamuso dhah haddaadan khayr sheegaynin inaad iska aamusood lisaankaaga aad xirato sidii xadiiskii dheeraay oo saxaabigii jaliilka ahay oo Mucaad ibn Jabal waa ku tagi doonaahe rasuulka calayhi salaatu wasalaam kufa calayka hada uu dhahay ina nabiga calayhi salaatu wasalaam lisaankiisa uu qabtay ayuu dhahay midkaan iska ilaaliyo dhahay markaasuu dhahay yaa rasuulallah wa inna lamu'aakhaduuna bima natakallamu bihi rasuul allow waxa aanu ku waramayna miyaana loo qabanayaa markaasuu nabigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam sakilatka ummuka وهل يكب الناس في النار على وجوههم أما وحود على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم مودا هو يدا وغي كويسي هذا هل هيس أي عربت لهاجر توي هبار ما سومالي دا بغدا مركي ور إسراي ور أدوغا بأي ويسير هذا هبارنا كم وضو ضد كمية النار تلوغو كفيا وجيغا لوغو بلابا ama sanka loo geliyaa afka ilaa waxay carabkooda ku goosteen mooyaan ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka lisaanku sidaas ayuu khatar u ku yahay in lisaanka la iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay carabka nugu yaala waa inaanu ku dadaalno qof ayaa waxa uu leeyahay dadka juhaalada anigu kulay carabkayga iska sidaas oo waa iska hadlaa laakiin qalbi ku haysna malihi xumaana ula ma jeedin uu leeyahay la cidna ka yeeri misataas وهي اللسان كان وحي كصوب حوالي اسكولا حساب تمايا هداي لكن سي او خدعه وحكاغا دعان وا غوني او اديغو دوناي مثلا بيناد خير شيغتو ايا لفظيغي وحو كاغا سبقيي اناد wax shara amba sa khayr daraa oo faaxish ayuu lisaankaaga sabqiyay markaas waxa weeye waa lagu dhaafaya laakiin waxa weeye qasad wixii loo yiri oo xumaana waa la isu qabanaya marka waxa weeye حديث هو حديث متفق عليه البخاري ومسلم وري حديث كان مركه وهو عضينا في أنه ينبغي أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا حديث كان وهو عضينا إن يوحبون أي تاي أو لغا مارمان أي تاي إن أن لغو ورمن إلا هذا الكوين خير يهموي هذا الخير كمحويه وهو الذي ظهرت مصلحته ومدك مركي لغو ورمو مصلحديسه iska muuqato shay waxa weeye markaad ku hadasho inay maslaxa ka iimaanayso ay daahir tahay weey wamata shukka fi dhuhur almaslahati fala yatakallam markii la shakiyo maslaxad inaysan ku jirin waxa weeye lagu hadli maayo qof kasta waxa weeye marka waa inuu naftiisa xukuma oo waxa weeye uu ka baarandiga waxa uu ku hadlaayo maxaa yeelay ilaahay waa tawdhaanu soo mareynay إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وطوله الله سبحانه وتعالى قف مكلفنا هدي إلهي وكادغي حبناهاس أديك كوغيا له أديك أيام مسؤول كأه أديك أيام لقا دون يسات كو إلى له هذه وحي مركز حبنا هذا أتكفشه ما لنت قيامه ونفت هذا كو مرخاتك إيسا وأتي إلهي سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشد أرجلهم بما كانوا يعملون marka waa in la iska ilaaliyaa waxa lisaanka laga sheegayo hadhow maalinta qiyaamo qofku marka uu dafiro wixii lisaanka uu ka sheegay ilaahay wuxuu ka dhawaajinayaa
jawaarixdiisa kaleentood waxa weeye afka waa la daboolayaa lugihii baa hadlaaya gacmihii baa hadlaaya ayagii baa hadlaaya waxaasaana laku sameeyey allow ay leeyihin marka waxa weeye waa in laga fiirsadaa qof walba jirkiisa ilaahay baa raaciyey ilaahay baa markaasi mas-uuliyad ka saaray waxa jirkeenna aan ugu adeegayno ama aanu ku samaynayno waa inu iska ilaalinaa markhaatiyaal baa ku daba taagan ilaa ladayhi raqiib maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi haddii qowl haddii layidhi ficilkuna waa kasii daran yahay oo qofku xataa waxa weeye haddownan uusan hadlin laakiin ficil uu samaynayo malaa'igtaas ayaa qoraysa meel looga dhuumo karana ma jirto ilaahay subxaanahu wa tacaalaane muraaqabada caamka ayuu ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala allah cilmigiisa qadiimka uu ku ogyahay wax kasta haddii aynu soo qaadanno qofka muslimkaa waxa uu yahay sida loogaga baahan yahay inuu waxa weeye lisaankiisa uu ilaaliyo waxaanu soo qaadanaynaa xadiisu saxiixayn oo saxaabiga la yidhaahdo abi muusa alashcari laga wariyey waa u dhahay abi muusa qultu waxaan dhahay yaa rasuula allah ayulmuslimiina afdalu rasuulki ilaahayow muslimiinta kee ugu fadli badan ay agharu sawaaban weeye wa aclaa maqaaman muslimiinta kee ugu sawaab badan oo ugu maqaam sarreeya qaala markaas nabigu waxau dhahay yuu yihi calayhi salaatu wasalaam man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimiinta waxaa ugu sawaab badan oo ugu khayr badan oo ugu fadli badan qofkii waxa weeye muslimiintu ay ka nabad galaan carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabad galaan qofka lisaankiisa laga nabad galo oo yaddiisa laga nabad galo mu'min waxa weeye iimaankiisa ou kaamil yaha weeye waxaa laga wadaa man salima almuslimuuna min lisaanihi qofkii muslimiintu ay ka nabad galaan lisaankiisa waxaa laga wadaa falam yu'di axadan minhum biwajhin min alwujuuh qof muslimiinta ka mid a marnaba ku dhibi maayo lisaankiisa kuma dhibaayo wa yadihi ayuu dhah haddane alla subxaanahu wa tacaala yaddiisa hadda waxa weeye waxaa meeshaan la khasisay lisaanka iyo gamcaha ayaa la khasisay oo si gaara loo sheegaan ka wada af soomaaliga waxaa loo khasisay amuurta ayaa sida badan ayaga ka timaada maxaa yeele hadalku wuxuu ka yimaadaa lisaanku uu ka yimaadaa ficilkuna wuxuu ka yimaadaa gacanta ayuu ka yimaadaa yadda ayuu ka yimaadaa hadda wixii kayrkood lagu sameeyane waa la isu qabanayaa marka waxa weeye waxaa laga wadaa xadiiska kan man salima naasu min adaahu qofkii waxa weeye dadku ay ka nabad galaan dhibkiisa iyo ficilkiisa waxa weeye waa isku mid man salima annaasu min adaahu waalficlu alkhaarij cala alghaalib laa mafhuuma lahu ficilkuna waxa weeye lamid waay marka waxaa weeye fa afdalulmuslimiina man lam yasdur minhu adan liaxadin minhum muslimiinta waxaa ugu fadli badan oo ka wadaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qof aysan ka soo fulin ama aysan ka imaanin axad aynan ugaga imaanin wax dhibaata waxaa la rabaa qof kastoo muslim ahow walaalkaaga muslimka ah kaa nabadgalo haddii qof walba qofka walaalkiisa uu nabadgeliyo oo adduunyada tan lagu joogo in la isdhowro waxa weeye noloshuba saasay ku hagaagaysaa hadda waxa dhibaatada keenay waa inaan la isdhowraynin ninkii shaacirka ahay waxau dhahay waman laa yadlim min naasa yudlami qofkaan wax dulminaynin asaga ayaa la dulminayaa waxaanu soo qaadanaynaa xadiis kaleentood isaguna oo Sahl ibnu Sacad laga wariyey qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama man yadman lii maa bayna lixyayhi wa rijlayhi admanu lahu ljanna u dhah rasuulkeenu xadiisu saxiixayn rasuulkeenu waxau dhahay war yaa ii damaanad qaadaaya waxa u dhaxeeya labadiisaas lafdaan daankan iyo daankan waxa u dhaxeeya iyo wa rijlayhi labadiisa lugood waxa u dhaxeeya oo adman lahu ljannata janna aan u ballan qaadaa u dhah rasuulku maxaa loola jeedaa marka maa bayna lixyayhi waxaa laga wadaa carabkaasaa laga wadaa war yaa ii damaano qaadaayo oo aan dhibaato ku geysanaynin waxaa u dhaxeeya labadiisa lafdaan waa lisaankee
iyo labadiisa lugood waxa u dhahay iyaguna farjiga waaye rag iyo dumar waxay ahaadaanba qofkii labadaas ii damaano qaada oo xumaanta ka dhowra jannaan u damaano qaada uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka hadda waxa aan laga baxsanaynin sida badan labadaas weeye marka hadda waxa weeye waxa markaas si aanu ka hadlaynay al-amru bixifdi lisaanay ahayd annagoo hadda marka waa soo koobaynaa oo hadda darsigaas ayaanu ku soo koobaynaa laakiin darsi labaad oo markaasi asaguna xifdu lisaan ah ayaa midkaa noola sii xidhiirsanaya hase yeeshee darsigeenni koowaad oo markaasi ku tacalluqaayay xifdu lisaan intaasuu noogu egyahay وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد